السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة أصحابتا ميل كستو دنك جوكتين هبينكي أروسكيدي أي جيريوتي وقصو آد وحنون بدن قصداني وحا قصوغن إبرقادشو قف كسر وحا للربا قصداني إنوك إبرقاتو قصداني وقصو حنبارسن حق آد وفر بدن قف كان وحا للربا إنو حق تاني بالله إلا لمات لسعودا وهي جيريوتي هبينكي أروسكيدا وقصو مدن إن لغو إبرقاتو qof kastana waxaan ka codsanayaa inuu muuqaalkani like saaro si meel fog u gaaro YouTube-keena subscribe noo saar aad ayaad u mahadsantihiin. Qisadani waa qiso dhab ah waxayna ka dhacday dowlad deegaanka Soomaalida habeenada ka mid ah gabar aroosad ah ayaa waxay tukatay salaada maqribka kadib waxay gashatay dharkeedii arooska marka loo mariyay make-upka ayaa waxay xasuusatay inaysan weyse qabin. Hooyadeeda ayaa waxay ku tiri hooyo anigu waxaan rabaa inaan weyse qaato. Hooyadii waxay ku tiri gabadhaydii maxaa dhacay dadka adiga ayay ku sugayaan adigana waxaad leedahay hadda ayaan weyse qaadanayaa mideeda kalena haddii aad had weyse qaadatid make-upka waa kaa tirtirmayaa maxaa xal ah. gabadhii waxay tiri waa inaan weyse qaataa maxaa yeelay wax yar kadib waxaa la gaari doonaa salaada cishaa anigana ma rabo inaan ku aasiyo rabbi. hooyadii waxay ku tiri ma waadatay maxaa kugu dhacay dadka adiga ayay ku sugayaan adigana waxaad ka hadlaysaa weyse iyo waxyaabo maala yacni ah waxay ku tiri inakaan aynu aadnay halkaasi. gabadhii waxay tiri anigoo aan weyse qaadanin halkaas ma aadaay. hooyadii waxay ku tiri gabadhaydii haddii aad weyse qaadatid make-upkaani waa kaa tirtirmayaa dadkana way kuu qosli doonaan maxaa xal ah. gabadhii intay dhool cadeysay ayaa waxay ku tiri dadka haddii aan marsan wax make-up ah haddiiba dadka iga qoslayaan ka waran haddii aan ku aasiyo Allah subxaanahu wa ta'ala maxaa dhici kara. hooyadii waxay ku tiri gabadhaydii go'aankaada ka joog waxaan rabaa inaad go'aankaada ka tagdid haddii aad go'aankaada aad ku dhagaagtid waan kaa xanaagi doonaa mana ku raaci doono hooyadaadana ma ihi ayay ku tiri hooyadii. gabadhii waxay go'aan ku gaartay inay weyse qaadato oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali geliso. gabadhii way weyse qaadatay waxayna go'aan ku gaartay inay tukato salaada cishaa. dharkeedii arooska waa iska siibtay waxayna gashatay xijaabkeedii waxayna u istaagtay salaada cishaa. gabadhii markay istaagtay salaada cishaa markii salaada gaartay sujuuda gabadhii dib maysan u soo laabanin nafta ayaa ka baxday halkaas way ku geeriyootay. dadkii arooskana way taagan yihiin ninkii wuu joogaa. gabadhii waxaa la rabay in loo galbiyo ninkeedii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa halkaas ku oofsaday. gabadhaani waxay ku dhimatay khaatumo wanaagsan ayada oo sujuudsan ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nafta ka qaaday. gabadhaani waxay ku dhimatay khaatumo wanaagsan. waxaa la rabaa gabdhaheena inay ku diidaan gabadhaani aad u aqliga badan. gabdhaheena maanta markay galaan arooska waxaa laga yaabaa 7 maalin ee arooska lagu jiro inaysan tukanin. gabadhaana habeenkii arooskeedii ayaa waxay go'aan ku gaartay inay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali geliso. walaalayaal dadnimadu waa wax loo dhasho. gabdhaheena waxaynu rabnaa inay noqdaan gabadhan oo kale. gabadhay haddii aad imaqlaysid waxaan kaa codsanayaa inaad ku diidid gabadhaani waa inaadan noqonin habeenkaadii arooska gabadh wax waliba iska samaysa waa inaadan u ogolaanin arooskaada heesaha iyo waxyaabaha maala yacniga ah. waa in arooskaada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala lagu raali geliyaa. waa inuu noqdaa arooskaada aroos diinta islaamka ku salaysan. haddii gabadhaas aad noqotid Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaa raali gelisay arooskaada wuxuu noqonayaa arooska ugu quruxda badan gurigaadana wuxuu noqonayaa guriga ugu fiican ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala agtiisa aad ugu qiimaha badan. walaalayaal waxaan rajaynayaa muuqaalkaana wax badan inaad ka faa'iideen. ayada oo qaawan ayay masaajidka gashay waxayna ka soo baxday ayada oo xijaaban. waxaan rabaa qiso aad muhiim u ah inaan kula wadaago. muuqaalkani like saar si dad fara badan u gaaro. YouTube-keena subscribe noo saar aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Faadumo waa gabar u dhalatay wadanka Mexico
waxay ku nooshahay wadanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. Waxay tiri, qoys Arab ah ayaa deriskaygii ahaa. Qoyskii waxay ahaayeen dad Muslim ah. Maamadii ayaan isbaranay, waan wada sheekaysanay. Waxaan ku idhi, diintaadii iigu waran. Waxay igu tiri, anigu waxaan ahay qof Muslim ah. Anigu waxaan aaminsanahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Sidoo kale waxaan qiray dhammaan ambiyada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo diray. Markaas ayaan ku idhi, ka waran diintaada? Markaas ayay igu tiri, diintaydii waxaa laga soo dejiyay Nabiyullaahi Muxammad, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Waxay sharaxaad aad u fiican iga siisay diintii Islaamka. Markaas ayaa waxaan go'aansaday inaan xog fara badan aan ka raadiyo. Maalmaha ka mid ah, aniga oo ka yimid jaamacadeydii, waxaan go'aansaday inaan masaajid wadada dhexdeeda ku yaali aan galo. Markii masaajidkii aan galay, waxaan ku arkay nin sheekh ah oo masaajidka dhex fadhiya. Markaas ayaa igu yiri, walaalay, diinta Muslimka waxay leedahay shuruuc, waxaan kaa rabaa inaad soo xirtid xijaabkani. Markaas waxaan ku idhi, waa diyaar. Waxaana go'aansaday inaan xijaabkii soo xirto. Markaas ayuu wuxuu igu yiri, soo gal masaajidka. Sheekhii wuxuu farta iga saaray aayado Qur'aanka Kariimka ah oo ku turjuman luqadda Ingiriiska. Waan akhriyay ayay tiri, aad ayaan u jeclaaday. Intaas kadib, waxaan go'aansaday inaan raadiyo kutubada ku qoran tahay diinta Islaamka. Waan akhriyay, aad ayaan u jeclaaday ayay tiri diinta Islaamka. Maalin waliba waxaan xaadiri jiray maxaadarooyinka ku saabsan diinta Islaamka. Masaajidada ayaan soo xaadiri jiray ayay tiri, si aan xog fara badan ugu helo diinta Islaamka. Maalmaha ka mid ah, aniga oo raba inaan dhageysto maxaadaro, sheekhii wuxuu ku dhawaajiyay diintaani inay tahay diinta keliya ee qof waliba laga rabo inuu qaato, diimaha kalena aysan waxba ka jirin. Sheekhii aayado Qur'aan ayuu soo daliilsaday ayay tiri. Aayadahaasi aad ayay ii saameeyeen. Hal mar ayaan istaagay ayay tiri. Kadib dadkii hortooda ayaa waxaan ku qiray Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Sidoo kale waxay tiri, waxaan qiray Nabiyullaahi Muxammad, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Halkaas ayaan ku islaamay ayay tiri. Dadkii hal mar ayay wada farxeen. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa isoo xanuuniyay. Waxayna tiri, halkaas waxaa la igu baray salaada iyo sida loo tukado, iyo xog fara badan oo ku saabsan diinta Islaamka. Waxaan ku dadaali jiray tukashada salaada iyo inaan Qur'aanka Kariimka barto. Maalmaha ka mid ah, ardaydii waxay ogaadeen inaan islaamay. Waxayna igu yiraahdeen, ma waalatay? Maxaa kugu dhacay? Maxaad ugu tagtay diintaadii? Waxaan ku idhi, aniga waxaan go'aansaday inaan diintaani Islaamka aan qaato, maadaama qof waliba uu leeyahay jooskaygana waxay noqotay inaan diintaani qaato. Ardaydii markay ogaadeen, ugu dambeyntii way iga aamuseen. Markay ii dhammaatay jaamacadeydii, waxaan dib ugu laabtay wadankaygii Mexico. Hooyaday iyo aabbahay way ila yaabeen isbeddelka iga muuqdo, xijaabka ay xiran. Markaas ayay waxay igu yiraahdeen, gabadhaydii, gadaasheennii maxaa kugu dhacay? Markaas ayaan ku idhi, aniga waxaan qaatay diinta Islaamka. Aabbahayga wuxuu igu yiri, ma waxaad ka dooratay diinta aabbahaada iyo diinta awoowayaashaada, diintaani aan la garanaynin? Markaas ayaan ku idhi, aabbo, aniga waxaan ka helay diintaani. Ugu dambeyntii aabbahayga afaarahayga waa isaga baxay. Mantaas kadib, waxaan ku dadaali jiray ayay tiri diinta Islaamka barashadeedii. Waalidiintaydii waxaan sharaxaad fiican ka siiyay muhiimadda ay leedahay diinta Islaamka. Ugu dambeyntii waxaa soo islaamtay hooyadaydii. Aabbahaygana sanadooyin kadib ugu dambeyntii waa soo islaamay. Familkaygana ugu dambeyntii way soo wada islaameen. Inay waalidiintayda soo islaamaan, aniga ayaa sabab u ahaa. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ku mahadsan. Maanta aniga iyo waalidiintayda waxaynu nahay dad Islaam ah. Waxaynu ku noolnahay magaalada London ee wadanka Ingiriiska. Waxay tiri gabadhaani, fariintaani qof kasta oo Muslim ah ayaan rabaa inay gaarto ayay tiri. Anigana fariintii waa soo gudbinay. Waxaan kaa codsanayaa fariintaani saaxiibadaada kale la wadaag. Waxaan rabaa inaan kula wadaago qiso aad muhiim u ah, qof kastana loo baahan yahay inuu ka cibro qaato. Qisadaani waxay ka dhacday wadanka Mareykanka. Maamo
ayaa waxay ku dadaali jirtay barashada diinta islaamka. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa lagu yiri, adiga ma waxaa tahay qof muslim ah? Markaas ayay waxay ku tiri, haa, anigu waxaan ahay qof muslim ah. Markaas ayaa lagu yiri, waa maxay sababta mar waliba aad u akhristid kutubkaani? Waxay ku tiri, kutubkaani waa kutub Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhankiisa ka yimid. waa kutubkii lagu soo dejiyay Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. waa diinteeni macaan kutubka ay ku qoran tahay ayay ugu jawaabtay. markaas ayay ku yiraahdeen, diintiina ma waxay ku kooban tahay halahan yariska ah? Markaas ayay ku tiri, kutubkaani waa marjac loo laabto diinta islaamka marka la joogo. balse waxaa jira ayay tiri axaadiis ka sugnaaday suubanaha naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee. diinta islaamka waxaa saldhig u ah kutubkaani aan gacanta ku hayo ee Quraanka Kariimka iyo axaadiista ka sugnaatay nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. markaas ayay ku yiraahdeen, waa kuma nabiga aad ka hadlaysad? Markaas ay tiri, waa Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. markaas intay ku qosqosleen ayay waxay ku yiraahdeen, naag waalin ayaa tahay ee iska daa waxaan aad halkan ku wado. markaas ayay ku yiraahdeen, soo gal diintaani Kirishtanka ah. markaas ayay tiri, maya, aniga ma rabo diintan Kirishtanka ah. maxaa yeelay aniga waan haystaa diin loo yaqaano diinta islaamka. markaas ayay ku yiraahdeen, diinta islaamka hadaad haysatid gaajo iyo duruuf fara badan ayaa kaa muuqata. waxaa laga yaabaa gurigaada in saaka wax lagu karinin, anigana nolosha way noo kala kacsan tahay. sidaa daraaddeed waxaad ogaataa diinta aniga gacanta ku haysano iyo diintaada diinteena ayaa fiican. ninkii wuxuu yiri, waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad ku soo biirtid diinteena si aad u heshid wax waliba aad u baahan tahay. maxaa yeelay ilaahayna wax waliba waa laga helaa. ilaaha waxay ula jeedaan sanamka. markaas ayay ku tiri, aniga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ku kalsoonahay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qof waliba wuxuu rabo ayuu siinayaa. inna Allaha yarzuqu man yashaa'u bighayri hisaab. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ima ilaawin. aniga diintiis ayaan aaminay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu igaajeynay ma aaminsana ayay ku tiri gabadhii. antay ku qosqosleen ay waxay ku yiraahdeen, haye waayahay ee orod sii waalo. markaas ayay ku tiri, okay, waa diyaar. gabadhii waxay ku dadaashay barashada diinta islaamka, gaar ahaan waxay ku dadaashay akhrinta Quraanka Kariimka. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalmaha ka mid ah iyadoo xaaladda ka qasan tahay ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ka furay farji aad u weyn. waxay rabtay gabadhaasi inay hesho nolosha dalka Mareykanka. rafaad iyo daal fara badan kadib, gabadhii waxay ka quusatay inaysan helaynin dalkugalka wadanka Mareykanka. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalmaha ka mid ah wuxuu u soo diray qof. wuxuu ugu yimid gurigeeda wuxuuna ku yiri, aniga waxaa isoo diray safiirka safaaradda dowladda Mareykanka. wuxuuna igu yiri, gabadhaasi u tag ee waxaad ku dhahdaa waxaad heshay dalkugalka dowladda Mareykanka si free ah. waxaadna ku noolaan doontaa anta noloshaada ka dhiman tahay. waxaadna u noolaan doontaa qof u dhashay wadankaas oo kale. waxaadna yeelan doontaa xuquuqda ay leeyihiin dadka wadankeena u dhashay. gabadhii aad ayay u farxday. markaas ayay waxay ogaatay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala la rabay wadadani aad u quruxda badan oo ah inay ka mid noqoto gabar ka diiwaan gashan wadankaasay. qisadaana waxaynu ku fahmaynaa qofka hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aamino, dhabnimo hadduu u aamino Ilaahay subxaanahu wa ta'aala, diintan islaamkana ku kalsoonaado, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu dambeyntii wuxuu ka arsuqayaa meel uusan filanaynin. inna Allaha yarzuqu man yashaa'u bighayri hisaab. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. qisadaani haddii aad ka heshay, like noo saar, youtube-keena subscribe noo saar. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. waxaan rabaa inaan halkan kuugu soo gudbiyo qiso ku dhacday wiil u dhashay wadanka Urdun. wiilkaani waxaa lagu magacaabaa Uzayr. wiilkaani waxaa ku dhacday qiso khaatimo xumo ah. qisadaani ayaan rabaa inaan kula wadaago. muuqaalkaani like saar si dad fara badan u gaaro. youtube-keena subscribe noo saar. aad ayaad u mahadsan tahay. wiilkaani wuxuu ahaa mid aan ku ficinayn salaadaha. wiilkaani maalmaha ka mid ah wuxuu go'aansaday inuu daawado filimaanta aflaamta ah. siduu u daawan jiray aflaamta iyo wixii la halmaala, maalmaha ka mid ah naftiisa waxay u qurxiday inuu daawado nimanka iyo naagaha sameeya
waxyaabaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan raali ka ahayn. Wiilka habeen iyo maalin wuxuu daawan jiray waxyaabahaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diiday. Wiilkani wuxuu ahaa wiil waqtigiisa ku dayacay daawashada aflaanta iyo waxyaabahaas aadka u xun. Maalmaha ka mid ah asxaabtiis ayaa waxay ku yiraahdeen, saaxiib, maanta waxaynu rabnaa inaynu aadno salaada. Markaas ayuu ku yiri, waa yahay, waa diyaar. Intuu isoo diyaariyay ayaa naftiisa waxay u qurxisay inuu daawado aflaanta. Intaas kadib wuu iska daayay inuu masaajidka aado. Wuxuu bilaabay inuu daawado aflaanta ilaa habeenkii laga gaaro. Wiilkii wuxuu soo baxay asaga oo dhibaato fara badan ka muuqata, daal iyo rafaad fara badan ka muuqda. Markaas ayaa hooyadiis waxay ku tiri, wiilkaygiiyow, maxaa kugu dhacay? Bishaani aad ayaad u baaba'day, wejigaada farxad kama muuqatee, maxaa dhacay? Wiilkii wuxuu yiri, hooyo, hurdo ayaan ka soo kacay. Hooyadii waxay ku tiri, wiilkaygiiyow, dhib ma lahaani ee cuntadaasii cun. Wiilkii cuntadii ayuu cunay. wax yar kadib haddana wuxuu go'aansaday inuu dib u daawado aflaamtii iyo waxyaabihii foosha xumaa. Ku dhowaad 2 sano ilaa 3 sano ayuu wuxuu sameynayay waxyaabahaas foosha xun. Mar waliba wuxuu daawan jiray aflaamta iyo waxyaabaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaaraantinimeeyay. Wiilkii ugu dambeyntii hooyadiis waxay go'aan ku gaartay inay geyso iskuulka markuu la geeyay. Wiilkii waxaa lagu yiri, waxaad qortaa suuratul ikhlaas. Wiilkii wuxuu yiri, aniga ma aqaano waxa la yiraahdo suuratul ikhlaas. Markaas ayuu macallinkii ku yiri, waxaad qortaa aayadani oranaysa, innal ladina يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. آيدان قرآن لغو يري ويلكي وهو يري ويلكي بمعنى المقالن آيد أتكاليست هويدي حلمر أي يابتي كدي معلنكي وهو كيري هويدي ويلكا ذي محاقود أي سوموسا أحين قف إسلامه مركز أي تري ها ويلكي هو إسلام أنك أيان دالي آبهي سنوانين كاس شيخة macallinkii wuu aamin waayay. wax yar kadib wiilkii waxaa laga soo celiyay iskuulkii. gurigii markii la keenay wuxuu dib u bilaabay daawashadii aflaamtii iyo waxyaabaha foosha xumaa. habeenada ka mid ah asaga oo daawanaya waxyaabahaas aadka ah xun wuxuu go'aansaday inuu masaajidka aado. balse shaydaan ayaa u qoriyay inuu aflaamta daawado. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa wuxuu ku leeyahay, inna ash-shaytaana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. shaydaan waa adowgeena ka dhigta. shaydaan ayaa u qoriyay inuu daawado waxyaabahaas foosha xun. wax yar kadib hooyadiis ayaa albaabkiisa soo garaacday. waxayna ku tiri, wiilkaygiiyow, waxaad aadaa masaajidka. wuxuuna ku yiri, hooyo, waa yahay, waan aadayaa. wiilkii muusan aadin masaajidkii. wuxuu dib u bilaabay daawashadii aflaamtii. wax yar kadib wiilkii halkaas ayaa nafta uga baxday asagoo uusan tukanin wax salaad ah. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa waxa ka kasaynin caasi waalideyn ah. wiilkani waxaa ku dhacday khaatimo xumo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaynu ka magan galnay inaynu noqono sida wiilkani oo kale. walaal muuqaalkani meel fog gaarsii qof kasta oo aas waalideyn Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cibaadadiisa aan ku ficnayn sidaan ayaa u dambaysa. naftaada horumar Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mar waliba ku xirnaaw. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay, wa tawakkal ala Allah wa kafaa billahi wakiil. qofka hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qabsado xarigiisa qofkaasay ma lumo. balse qofka hadduu waxyaabo maalayacni ah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaaraantinimeeyay socdo ugu dambeyntii wuxuu ku soo dhici doonaa binaanka. muuqaalkani like saara. aad iyo aad u mahadsantihiin. antan muuqaaliga aan ku kulmi doogno sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh.